وعن وناكسن داود يال ووربانيتا سومالوين برودكشن وحنو مانتا إدين سو قدبينينا دعدو نادر أو لحديدا مقدشو إيا دورشة ددوينه warbaahinta Soomaaliyeed oo aad mar walba ka daawataan wararka arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxaanu maanta idin soo hadlaynaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xarun loo asteeyay in dadweynaha reer Muqdisho ay kaararka dadweynaha ay ka qaataan si ay isugu diiwaan geliyaan doorashada dadweynaha ee dalku u diyaar garoobayo in ay ka dhacdo haddaba inkastoo doorashadan dhinacyada siyaasadda gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saamilada siyaasadeed ee dalka isku hayaan haddana maanta halkan dadweynahii ugu badnaa ayaa isugu soo baxay si ay 56 sano kadib ay uga qayb qaataan doorashada dadweynaha ee la qorsheeyay in ay dalka ka dhacdo dadweynaha ayaa qoraxda safaf dhaadheer ugu jira inay isdiiwaan geliyaan iyagoo kaararka qaadanaya si ay markaasi ay codkooda u dhiibtaan marka ay kaararka qaataan kadib haddaba kaliya ma aha dadweyne xitaa mas'uuliyiintii amniga iyo mas'uuliyiintii kala duwanaa ee gobolka Banaadir ayaa iyaguna halka yimaaday xitaa wasiiro ayaa maanta qayb ka noqday dadweynaha degan degmada Shangaani ee kaararka diiwaan gelinta dadweynaha halkan ka qaatay iyaga oo u diyaar garoobayo markaas inay qayb ay ka noqdaan doorashada dadweyne ee la qorsheeyay inay dalka ka dhacdo haddaba mas'uuliyiinta hadalkooda iyo waxa ay guddiga doorashooyinku ay ka yiraahdeen maalintan taariikhiga ah ee 56 sano kadib ee dadweynaha reer Muqdisho ay codadkooda safaf dheer ugu galayaan sidii ay kaarka aqoonsiga oo markaasi lagu aqoonsan lahayo qofka inuu isdiiwaan gelin karo ama qofka inuu kaarkaasi uu codkiisa ku dhiiban karo si uu u qaato ayay safaf dheer ugu jiraan guddiga ayaa arintaasi ka hadlaya laakiin waxa rabaa in aan idin xasuusiyo in arinta doorashadan la xidhiidha madaxweyne Xasan Sheekh iyo saamilada siyaasadda ay isku hayaan waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda uu qaaday tallaabo u muuqato mar kale inay sii kicin karto xasarada siyaasadda ee dalka waxa dadku qaar ay ku macneynayaan in kooxda madaxweyne Xasan Sheekh aysan dhagjal u siinaynin didmada culus oo ay mucaaradku ay ka muujinayaan arinta doorashada dadweynaha si kastaba ha noqotee guddiga doorashooyinka ayaa ku adkeysanayo inay qabtaan doorashada dadweyne maanta ugu dambeysay gudoomiyaha guddiga hadlay waxa uu yiri cidna loo joojin maayo oo doorashada dadweynaha way dhici doontaa dadkii diyaar ay u yihiin qoraxda ay taagan yihiin safaf dheer ay taagan yihiin dhacdadanna ku darso waa dhacdo taariikhi ah oo markaasi aynu maanta u nimaanay si aan uga soo waranno dadweynaha halka yimaaday bal ila daawo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ka hadlaya sida dadweynuhu ay maanta isku diiwaan geliyeen qoraxdan kulul waqtiga eerliga ah oo horaadka ah timaadeen dadkii saxankoodii iyo sawaxankoodii iyo mashquulkooda batay bulshadii kala duwaneed ee timid waa mahadsantihiin run ahaantii maanta inaad waqtigiinni ugu badnaa gelisaan Soomaali oo maanta u dareertay gobolka Banaadir dadku inay isdiiwaan geliyaan anigoo ah gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo bilowdo maalintii ugu horeysay oo dadka gobolka Banaadir ay u dareeraan inay isdiiwaan geliyaan si ay u doortaan madaxdooda golaha deegaanka waa bilaaw maanta noo bilaabatay waxay socon doontaa 30 cisho aad waxaan ugu faraxsanahay dadka Soomaaliyeed sida ay uga soo jawaabeen fariimaheennii oo ahaa in maanta April oo ay tahay 15 sanadku uu yahay 2025 inay bilaabanayso diiwaan gelinta dadweynaha gobolka Banaadir oo ku faraxsanahay dad fara badan ay yimid nambarkan filayna nambarka badan ay yimid reportkan hayna wuxuu ahaa in Shangaani dad yar ku nool yihiin laakiin Shangaani waa beeniyeen maanta nambar badan ku yimid waana bilow qaar ka mid ah dadweynihii isdiiwaan geliyay ayaa sidoo kale la hadalnay doorasho cod qof hadii la bilaabo waxa meesha ka baxaya nidaamkii foosha xumaa ee 4.5 ee dalka hare ee musuqmaasuq iyo jaclaysiga taasna waxaan u arkaa guul iyo gobonimo oo u soo hooyatay wadanka Soomaaliya muddo 60 sano aan wax doorasho cod laga qabanin insha Allah kaarkanina waxaad ku qaadanaysaa kaarkan haddii aad haysan kaarkii aad ku gali lahayd ma helaysid marka qof walba waxaan leeyahay marka kaarkan la siiyo waa inuusan iska lumin uu ilaashado si uu kaarka codeynta uu u helo waa gartay doorasho hore uga qayb gasho ma jirtaa mise faas yes Somaliland Hargeysa shime mar hore doorashadii madaxweynaha waa gartay tan Soomaaliya uga qayb galaysa marka imika halkan aan joogaa aad baan ugu faraxsanahay magaaladii Muqdisho oo doorasho ka dhacayso waa wax lagu farxo waya Soomaaliya waxa la leeyahay 56 sano ka soo wareegatay in dadweynuhu ay wax ay doortaan xilligaas adiga ma ka wareysay 69kii
ما كقيب قلين وان كبقلا دالك waa gartay tii Soomaaliland ka qayb gashay في سومالان si qurux badan bay u dhacday dadkan qaar waa uga khibrad fiican tahay doorasho qof fiican waarun waa gartay mar maxaa noo sheegi kartaa doorasho xisbiyadii ay ahayd xisbiga u ciidan ka tirsanaa markaas marka in muqdisho inay ka dhacdo Soomaaligu aad baan u jeclahay dareenkayga inaba caadi maahan aniga intaan jiro waligay ma arag doorasho qof iyo cod ah waa markii iigu horeysay waan ku haminayaa maalin in Ilaahay gaarsiiyo hadii aan noolahay waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dalka Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo noo cilaamiyay inaan hadafkiisa uu ka dhameeyo doorasho qof iyo cod ah inaan gaarno iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Amiir waxaan leeyahay waa mahadsantiin Ilaahay ka sokow guddiga doorashooyinkana waxaan leeyahay guuleysta mas-uuliyiinta hay'adaha amniga ee halka yimaaday iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo noqday mas-uulkii ugu horeeyay isdiiwaan geliyay ayaa sidoo kale aanu la hadalnay wuxuu ka hadlayaa dareenkiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Amiir maanta waa maalin taariikhiya oo 56 sano ka bacdi ah magaalada dhaqaaqayso inay doortaan dadkii hogaamin lahaa waxaan mar dhammaan Soomaalida ee ku nool magaaladan ka codsanaynaa in ay isdiiwaan geliyaan anigu waa kaas waa markii ugu horeysay oo aan isdiiwaan geliyay oo aan doorasho u diyaarahay shahaadada diiwaan gelinta la siiyay kaarka cod bixintuna waa ii imaan doonaa saa darteed marka waxaan jecelahay una sheegaya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan in ay isdiiwaan geliyaan maanta degmada Shangaani waxa ka socda isdiiwaan gelintii si nabadgelyaheena ku socota wax arqalada ama wax dhibaato ah ama wax qalqal amniga ah quseeyahay ma jiro xaaladda guud ahaan waa okay shacbiga degmada Shangaani inta maqanna waxaan rabaa inay timaado isdiiwaan gelinta way soconay maalmahan way socon doontaa Ilaahay haduu yiraahdo marka dadku waxaan rabaa inay ku soo dhiiradaan inay isdiiwaan geliyaan degmooyinka kale sidoo kaleeto inay isku diyaariyaan isdiiwaan gelinta qof walba inuu waxa la rabaa cod bixinta asoo diiwaan gashan oo codkiisa baxsado si xor ah u baxsado Ilaahay haduu yiraahdo in maantay ay bilaabatay caasimadda Soomaaliya ka bilaabatay diiwaan gelintii dadweynaha shacabka caasimadda ku nool maalinteedii koowaad inay maanta bilaabatay inaan rajeynayno inay caasimadda dhan si nabada inay caasimadda dhan aan rajeynayno Ilaahay ka rajeynayno inay si nabada uga dhacdo Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ka rajeynaynaa inagoo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaashanaya hay'adaha ammaanka inay suuro geliyaan caasimadda inay ka dhacdo doorasho waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool inay diiwaan gelintaas oo dhariska iyo awaamirta ay bixinayaan guddiga doorashooyinka iyo talooyinka ay siinayaan inay qaataan dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee jecel wanaagana waxaan leenahay dhanka wanaagsan mar walba inay wax ka eegaan oo dhinaca wanaagsan inay wax u tabiyaan waxaan rajeynaynaa sida ugu talagalay in wax nagu dhacaan ayaan Ilaahay ka rajeynaynaa sida la socotaan maanta waxaad u jeedaan gudoomiyihii gobolka wasiiradii iyo qofka shacabka ahaaba inay sinaayeen qof walba oo idin kamid iyo idinkaba inaad sinaydeen oo qof walba oo in kamid ah halkaan uu soo galay asagoon wax istaaf oo wata aan la arkin taasi waxay xaqiijinaysaa in qofka muwaadinka iyo gudoomiyihii gobolka oo maayarka caasimadda muwaadinka koowaad oo caasimadda ahna iyo qofka shacabka ahna inay sinaayeen sidaas oo kale waxaan rajeynaynaa inay degmooyinka gobolka Banaadir 16 degmo ee lagu talagalay in doorashooyinka ka qabsanto inay sida uga qabsanto iyo caasimadda dalka haddii aan nahay hay'adaha booliiska Soomaaliyeed oo kaashanaya hay'adaha ammaanka iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaan diyaar u nahay inaan amniga caasimadda iyo diiwaan gelinta soddonka bari soconayso inaan amnigooda sugno haddaba isku soo wada dube dalka doorashooyinka Soomaaliya muddo kadib waxa uu u muuqdaa in uu hore u dhaqaaqay in badan oo ay dadku jahwareer siyaasadeed ay ka muujinayeen siyaasiyiinta qaarkoodna ay mayl adeeg iyo inay diidan yihiin ay muujinayeen balse hadda Soomaaliya waxa ay u dhaqaaqday 56 sano kadib in ay talaabo u qaado in dadweynuhu ay doortaan mas'uulka hogaamin doono ama qofka ku matali doono dawladda
guud ahaan wararkeena warbaahinta Soomaali Weyn Production oo aanu maanta idinkala soo waramaynay xarunta guddiga doorashooyinka oo dareenka dadweynaha iyo mas'uuliyiinta dadka reer Muqdisho maadaama dhacdo taariikhi ahayd aynu idila wadaageenay aragtidaada wax dhisaysa qaybta hoose faalada dadweynaha nagu reeb haddii aad tahay saaxiib nagu cusub nagu soo bir min lacaana barnaamijyaadka nabadgelyo